xildhibaan Axmed Cali Aadan oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Somaliland oo Ariel TV kula hadlayay xarunta golaha guurtida ayaa waxa uu si adag uga hadlay hadallo ay dhowaan iswadaarsadeen xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda kuwaas oo ku saabsanaa suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa waxaana isagoo arrimahaas ka hadlaya hadalladiisa ka mid ahaa sida Waaheen dad badan baa ku waxyeeloobay lacag 2 bilyan ka badan baa la sheegaya wali in ka badan kartana oo suuragal 2 bilyan oo dollar in ka badan tan oo suuragal waxa halka ku dhacay masiibada dhacdayna waxaanu inagu kasbanaynu keensanay ilaahay waxaanu ka baryaynaa horta waxa u soo jeedinaya dadkii reer Waaheen reer Somaliland baan toobad ilaahay u celino toobadu waa toobatu nasuux ilaahay u aqbala toobada waxaanu ka rajaynaynaa in ilaahay naga aqbalo ilaahu toobabaan dambigii aanu gallayba halka ka dhacay waxa anagu keensanay u leh meel kamu iman ilaahu dunuubta naga dhaaf waa bil rabadaan ku jiraa ilaahay baan baryaynaa ilaahay dunuubta naga dhaafo wixii halka ka dhacay lama radaan cidi naga dhiman de 19 waynu ka kabanay wixii na soo gaaray waynu ognahay sida maanta dalkeenu u dhisan yahay iyadoo baaba aynu nimid maanta alxamdulillah waxay naga burburay waa hantidana ilaahay bayna siiyay ilaahayna siiyay inuu joogaa imikana isaga na siin doona ilaahay idimkii ilaahay waxaanu baryaynaa ilaahay awilna khayr qaba ilaahay kalka inaga siiyo dadka reer Somaliland shacabka halku waxyeeloobeen waxaan leenahay idinla dareen baanu nahay idina waan dareekii gola guurtahaana waan idin haynaa waan idinla joognaa habeeniyo maalinta weydii ducaanina ilaahay awilna khayr qaba inaga siiyo qoliyahan waxa jirta maalmahan u dambeysay media wax la soo marinayay oo sidii wax macaynkan iyo macaynkan dad isku sawiraya meeshii wixii mucaaradyo war maanta waxaan u baahanahay midow uma baahinin mucaaradada halka laga dayo iyo wax laga baarbaaro iyo dawlad hoose lagu wareejiyo xukuumad dhaxal lagu wareejiyo wada jir maanta inaan wax isugu qabanay inuu gacanta isqabsanay u baahanay wada jir hadii la waayo iyo midnimada waxbay noo hagaagmayaan war ilma adeerayaal ka daaya siyaasadda oo ka daaya farafaraynta oo ka daaya gujugujeynta iyo ducaynta waxa weey dadkeena ninkii wax taraya halka ku tabaaloobay iyo ku abaaraysan iyo ku meelaha kale ku dhacday ninkii wax taraya maanta uu baahanay cidii wax taraysa reer Somaliland maanta waynu u baahanahay cidda doonta ha noqoto yaalna taataabanin yaan la faragelin xukuumadda markay noqoto waa xukuumadda deynka dalkii xukuumadda ka jawaabista badan iyo ka hadalkeeda iyo waxa ku mashquulina dadkan iyo dalkan idinka ka mas'uula hore u socda dadaal baa wadaan Allah idinla garab galo weydii ducaynina dadaalka wadaan hore u wada cidda waxaan ka hadlaysana ha ku mashquulina idinka waxaanu idinka baahanay xukuumadana isku garab taaganahay wixii halka ka imanaya cidii idin keenaysa qabashadeeda ururintii lacagtii xalay u dambeysay 8 milyan hay'ad ganacsatada ka urursanay reer Somaliland madaxweynuhu ka mahadnaqay inaguna ku mahadnaqayno iyo in ka badan la idinka baahay ganacsatada Somaliland dadtiin waxa weey sidii dadkii loogu qaybin lahaa way cadaaladii loo sameeyay lahaa idinka idinka baahay jawaabaha badan iyo waxa nagu mashquulina inagu waxaan u baahanahay xukuumadeenu nahay xukuumaddu marday xukuumadii tahay waxa weey shaqadeeda ha gudato waana ku ammaanantiin saa wuxuu wadaan ilaa imika si wanaagsan ma wuxuu wadaan aad iyo aad baa u mahadsantiin saxaafadana intaas ma doonayno ku siyaadiyo warkan kan qoliyahan suuqa maxaa xisbiyada ma adeerayaan maanta maalinta xisbiyada maaha meeshu siyaasad maaha waa dib baa jirta umad baa caylowday dan yara ku dhaxe ku sare ayaa meeshu ku baabaado ku caylowday qoliyaha xisbiyada waxa leeyahay war siyaasadda laga daayo waxaanoo inta kolbadoo xilli dhex cararayan dalad yar iyo wax la carareen meelahaas waxa weeyday ninkii wax qabanayo waxaad qabanaysaa keen dar ilaahay u keen waa bil rabadaan uma baahna buuq iyo qaylo waxaad bixinaysaa waa ku sadaqo hal laga daayo siyaasadda iyo buuq oo xukuumadana ha loo daba fadhiisto guddiga heer qaran iyo heer degmo iyo heer gobol iyo heer deegaan bale loo xil saarina ha loo daba fadhiisto wixii halka ka soo baxana sidii cadaalad ugu qaybin hareeraha laga wada istaago day waxay u baahan tahay arintaasi maanta golayaal ahaan iyo xukuumad ahaan iyo xisbiya ahaan iyo ninka meesha doonaa joog gudiga dawlad meesha doontaa joogto in gacmaha la isku qabsado arintaasi si miir qabta oo degan oo alla ka cabsi leh oo wanaag lagu dhameystiro sidoo kale xildhibaan Axmed Cali Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay weli abaarti ay taagan tahay isla markaana aan la iloobin dadka ay abaartu saameysay abaaradan ku horeyno abaarti weli waa jirtaa maalmo dhexdeed waxba yar daaday
haddana waa iska wax noqotay roobka dib uu kala gooyay ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga soo furto abaarta gacan bil aadan laguma dhargo waxa la wax tirtaa ma jirto waa iska koobantay intii gaadhana waa koobantahay wax bil aadan hayana wax iska kooban deeqda aluma lagu dharga ilaahay deeqda inaga dhargay baan oo taa ilaahay baynu ida baryaynaa ilaahayna waxaanu ka baryaynaa ilaahay si degdeg ah soo waraabiyo Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Ariel TV Hargeysa.